Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal walaalayaal soo dhawaada magacaygu waa Cabdirasaaq Cariif halkaan naga daawanaysiinna waa Cabdirasaaq Cariif waxaan rabaa saaxiibayaal marka ku cusub aad tahay pageka inaad follow soo dhahdid sidoo kale waxaan rabaa inaan idinla wadaago video aad iyo aad u cajiib ah video aan la yaabay video yacni dad badan oo muslimiin iyo kuwa aan muslim ahaynba qalbiyadooda taabtay isla markaana laga dheehan karo sida ururka iska caabinta ee Xamaas ee u dagaalamayo inay iska xoreeyaan Yahuudda Israa'iil isla markaana video aad iyo aad yacni dhammaan xitaa dadka maxaabiista ahaa oo la haystay oo sida wanaagsan loola dhaqmay haddii ahaan lahayn muxuu ahay 4 gabdhood oo ka tirsanaa ciidamada Israa'iil isla markaana lagu soo qafaashay ama lagu soo qabsaday dagaalkii 7 Oktoobar ee 2023 markii ururka Xamaas ay dagaal ku qaadeen Israa'iil ee Tel Aviv oo markaas lagu soo qabsaday dagaalkaas 4 gabdhood qaar badan oo ka tirsanaa Israa'iil uu ahaa dad muhiim ah iyo kuwo markaas ciidanka ka mid ahaa Israa'iil marka videogan wuxuu cadeynaa 4 gabdhood oo ciidanka Israa'iil ka tirsanaa sida wanaagsan loola dhaqmay sida maxaa la dhihi jiray loo daryeelay inta halka sano iyo 5 bilood uu dagaalka ka socday marinka Gaza halkaas oo gabdhahan sidoo kale af Carabi ay ku hadlayaan ay leeyihiin sida noola wanaajiyay sida muxuu ahay biyo nadiif noola siiyo cunto nadiif dhar nadiif wax walbo sida muxuu ahaa loo wanaajiyay aad iyo wejiyadooda aad ka dheehan kartid dhammaan farxado aad iyo aad u wanaagsan isla markaana ay daawanayaan si live ah markii lagu wareejinayo ururka bisha cas ee dhammaan daawanayaan dad ku sugan Israa'iil oo markaas si live ah u daawanayaan sidii loogu wareejinayo maxaa la dhihi ururka bisha cas gabdhahan aad iyo aad u faraxsan yihiin isla markaana xitaa luqadda Carabiga ay ku hadlayaan ay ugu mahadcelinayaan ururka Xamaas ay u leeyihiin dhalinyaro wanaagsan waaye way noo dadaaleen wax fiican ay noo sameeyeen waxay naga ilaaliyeen ay leeyihiin weliba duqeymaha Israa'iil ee ka geysanaysay marinka Gaza ayay naga ilaaliyeen ay leeyihiin iyagoo aad iyo aad u cabsanaya marka dagaalada intii uu socday السلام عليكم مرحبا شكرا لكتاب القسام على كل المعاملة الكويسة. شكرا للأكل والشرب والملابس. شكرا للشباب اللي كانوا يحفظوا علينا ويديروا باله علينا من كاسف وإن شاء الله يكون الكل يوم سعيد وأحسن يوم وكلنا نكون بخير. يوم 25/1/25. marka videogaas si aad uga helay sidoo kale gabdhahan kaligooda ma ahan waxaa kaloo jiray kuwo kale badan oo maxaabiis Israa'iiliyiin ah iyagana intii xabsiga ay ku jireen ama maxaabiista ahaayeen luqadda Carabiga la baray oo luqadda Carabiga ku hadlayaan ugu mahadcelinayaan ururka Xamaas sida wanaagsan ay ula dhaqmeen sida maxaa la dhihi jiray u wanaajiyeen taasna waxay yacni wanaag u tahay dhammaan caalamul islaami שלום, היום הוא יום שמח מאוד מאוד. אני יושב פה ליד הים, ליד הנמל של עזה. بدي بقول قسام شكرا جزيلا كل شيء انتو كويسين معنا كل 15 شهور كتير وقت في البيت insha Allah Falastiinna way xoroobi mar alla markay noqoto way xoroobi insha Allah dhammaan waxa qof walba oo muslim ah horta inuu u duceeyo waaye in culeyska iyo dhibaatada Ilaahay ka dulqaado Falastiin ay noqoto dal xor ah oo yacni adduunka meel walba nabad ku maraan la aqoonsan yahay maasha Allah marka videogaas ha jeclaysa inaa idinla wadaago dhammaan asxaabta waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh